munaasabadahani ayaa maanta xilka waxaa kula kala wareegaya maareeyaha iyo maareeye ku-xigeenka cusub ee hay-adda aagga ganacsiga cashuuraha ka caagan iyo sidoo kale munaasabad ay kula kala wareegayeen guddiga cusub ee agaasinka hay-adaha dekedaha iyo aagga cashuuraha ka caagan ee friisonka. waxaana munaasabadahani oo lagu qabtay magaalada Berbera ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Somaliland, maareeyayaal, komishaneero, xildhibaano, salaadiin, waxgarad, mudan iyo marti sharaf kala duwan. waxaana munaasabadahani laga jeediyay hadallo kala duwan oo lagaga waramayay munaasabadahani xilka lagu kala wareejinayo mas'uuliyiintii hore iyo mas'uuliyiinta cusub. magacaabista aniga la magacaabay friisonka Berbera muu jirin madashan imika aynu dhex fadhinaa waxay ahayd meel bannaan oo cidla ah. maantana quruxdeeda iyo sharafta ka muuqata waad arkaysaan. sharaf weyn bay runtii tahay maanta anigoo ah maareeye ku-xigeenkii hay-adda friisonka isla markaana maanta halkan ku wareejin doonaa xilka kusimaha bishii Oktoobar ilaa bishii Abriil waxaan ahaa kusimaha maareeyihii hay-adda waxa uu ku maqan yahay xaalad caafimaad saa darteed hawsha iyo mas'uuliyaddiisa maanta aniga halkan ku wareejin doona haddii alla yidhaha insha allah. gabagabadii waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo hayaankaa dheer ee aan idinka sheekeeyey ee meesha bannaan iyo maanta before iyo after baynu miidiyaheenu inta badan isticmaalaan. waxay ahayd before in halkan maanta sawir aan ku qabanno meeshan oo cidla ah oo dadka deegaanku inta badan ay nagu dhahdaan meeshan awowgeyba abeysada ku cuni jirtee maxaad naga soo doortay. maantana quruxda iyo wanaagga ka muuqda. waxaan u mahadnaqayaa number 1 wasaaradda maaliyadda oo ugu horreeya wasiirku. waxaan sidoo kale aan u mahadnaqayaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda. waxaan halkan sidoo kale uga mahadnaqayaa shirkadda DP World oo muddadii aan joognay runtii si dhow oo very professional aan wada shaqaynay. waxaan halkan ku soo dhawaynayaa agaasimayaashana bedeli doona ee hawshan la wareegi doona. aad baan idin soo dhawaynayaa. hawshan aynu bilaabaynaa annagu markii aan bilaabnay siduu sheegaya aniga markii maalintii la magacaabay xilka laygu wareejiyey meeshani ma aha meel loo soo raaxo tagay. waa shaqo adag oo had iyo habeen way fuushan tahay. ugu ducaysaan idinkuna ilaahay ugu asturo oo waxa weeyaan halkaa maanta iyagu ay soo gaadhsiiyeen meel ka sarreysa insha allah aynu gaadhsiino. maalinba halkan nin baa imanaya oo qarankiisa u adeegaya. annaguna insha allah bidnillaahi kariim sidaa maanta ay u wareejiyeen si ka qurux badan ayaanu u wareejin doonaa waanu dadaali doonaa. mahadnaqayaa marka labaad madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal oo aniga iyo tiimkaygaba noo magacaabay xil culus oo miisaan leh. ilaahayna aan ka rajaynayo inuu ilaahay noo fududeeyo dhammaantayo. weyne hawsha aad noo idmatay insha allah waanu intii awooddeedii ilaahay uuna karsiiyo waanu qabananaa. waxaan kolley cabdikariin oo ahaa maareeye ku-xigeenkii hore ayaa hadalka dhameeyey. dardaaran badan baadna siiseen. dardaaranka inaanu qaadanaanu insha allah rajaynaynaa. idina way idin dambaysaaye ninka magac kaga taga ayuunbay meeshu wax tartaa. ninka kale waxba ma tarto. iminka guddoomiye maarshaal iyo guddoomiyaha friisonka oo nin reer boorama ah oo dee berberiye booramana waxbay wadaagaan waanu soo dhawaynaynaa. waddankii meel buu soo taabtaye meeshaas inaynu la garab galno madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba runtii aynu joogno iyagaa ka soo qaaday cabdikariin. waxaan ugu mahadnaqayaa iyo gruubkiisa iyo boodhkaba in ay keeneen maanta madashan quruxda badan ee aynu fadhino iyo shaqadan quruxda badan ee ay kaga tegeen. horta waxa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qaranka Somaliland. horta nabadgelyada aynu haysano maanta annaga madax dhaqameedku wuxuu ka shaqeeyaa nabadgelyo hadday bari joogaan iyo hadday galbeed joogaan. friisonku waxa uu dekedda muhiim ugu yahay sida kooridoorku amaba jidka weyn ee ku xidha hadda Ethiopia uu muhiim ugu yahay. friisonku waxa uu dekedda muhiim ugu yahay sida madaarku u yahay hub logistics hub dekedda ku xidha wixii adeeg ee hawada maraya. sidaa darteed farxad weyn bay tahay tiimka maanta dekedda loo soo magacaabay. waa asal dekeddu. friisonku waxa uu noqonayaa farac kaaba si ay u gaadho hadafkii guud ee ay dekeddu lahayd. labada kalmadood waxa weeye u mahadnaqa mas'uuliyiintii hore ee xilkan maanta wareejinaya guddoomiyihii boorka Siciid iyo guddoomiye ku-xigeenkii Cabdilkariim
waxaan la soo dhawaynayaa oo aan leenahay iyaga ilaahay intii aad qabateen miisaanka xisanaadka idinku daro macnaheedu marka mas-uulka la bedelayo maaha mar kasta maaha ama waxbuu dayacay ama waxbuu qaban waayey ama laakiin waxa weeyaan in dhiig cusub lagu shubo mas-uulka meesha joogay waxaa maanta farxad noo ah inaannu ka soo qayb galno xafladda xilwareejinta ee hay-adda cashuuraha ka caagan ama hay-adda frisoonka iyo guddida sare ee dekedaha iyo frisoonka waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiintii hore ee xilka wareejinaysa cabdikariin waxaan aad iyo aad halkan maanta aan isna ku soo watiyaynaa oon aad iyo aad u ammaanayaa oo dhallinyarada faraha badan ka fadhida aanay ogeyn taariikhdiisa siciid shigur xuseen waxaynu soo dhowaynaynaa mas-uuliyiinta cusub ee madaxweyne magacaabay oo ah maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka cusub ee frisoonka guddoomiyaha guddida sare ee agaasinka hay-adda dekedaha iyo frisoonka